kulanti wacan saaxiibayaal muuqaalkan oo ka duwan kuwii hore waxaan uga hadli doonaa wariyaha BBC-da Cabdirasaaq Xaaji Catoosh oo arrin foolxun ku sameeyay gabar Soomaaliyeed iyo isla gabadhaas oo ka sheekeynaysa wixii dhexmaray iyada iyo wariya Catoosh. aan ku bilaabay warbixinta waxa saacadihii la soo dhaafay si weyn u qabsaday baraha bulshada gaar ahaan barta sida weyn ay u isticmaalaan Soomaalida ee Facebook arrin uu ku sameeyay gabar Soomaaliyeed wariyaha BBC-da Cabdirasaaq Catoosh. gabadhan ayaana ka mid ah dadka ku xiran barihiisa bulshada gaar ahaan bartiisa Facebook. gabadha ayaa ka mid ahayd dad fara badan oo ka aragti dhibanaya post uu ku soo qoray boggiisa Facebook wariya Catoosh waxaana qaybta aragtida ay ugu qortay in ay tahay gabar Soomaaliyeed una baahan in la caawiyo sidoo kale waxay si raacisay inay tahay shaqaradis ama ay tahay gabar shaqo doon ah. intaas kadib waxa qaybta dadka aragtida soo dhiibtay loogu jawaab u galay dad fara badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo gabadhu u sheegay in ay helayso waxa ay raadinayso sidoo kalena niyad is u sameeyay. dadkaas waxa kamid ah wariyaha boggiisa sheekadan ay ka dhacday ee Cabdirasaaq Xaaji Catoosh waxaana gabadha ugu jawaabay si kulul isagoo u qoray hadal ay ka xumaadeen bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan saaxiibada sida weyn ugu xiran boggiisa Facebook ee dadka faraha badan ay ku xiran yihiin. haddaba gabadha isla sheekadan ay qusayso ayaa waxay ka warbixisay sida ay wax u jiraan iyo sidoo kale ereyada ay isdhaafseen iyada iyo wariyaha BBC-da Cabdirasaaq Xaaji Catoosh waxaana wareysigan xiisaha badan la yeeshay saaxiibkay Munasar Maxamed. Nawaal aad iyo aad soo dhawow. Nawaal waa gabar hadda ka hor aan soo bandhignay sheekadeeda oo iyada oo sidan oo kale baraha bulshada ugu soo qori jirtay inay shaqo doon tahay kuna guuleysanay aniga iyo wariye Yaxya Jiinow inaan fursad shaqo u raadino oo helno markii booga kala duwan ay wax ku soo qortay oo keyga uu ku jiro wariyaal kale kooda ku jiraan gabar Soomaaliyeed aadna uga danqanay. laakiin Nawaal bal marka hore noo waran bal shaqadii hore aan kugu ogaa maxaa ku dhacay waayo waxaan u jeedaa hadda adigoo page Catoosha soo dhigaya muuqaal ay qoraal dhahayo shaqan raadinaya asagina uu ma aragtay jawaab dadku aysan jeclaysan ka bixiyay maxaa dhacay shaqadii horta shaqadii oo maalintii oo maamo basma dhamaan joogay maamulka banaadir oo Jiinow joogay walaalkii qaali oo hadda shaqada la ka tagay daraada isla hadlayno oo u sheegay hataa walaa aniba shaqada waa ka tagay oo dhahay marka arima la dhibaato ma lahan marka shaqada hadda waa ka soo tagay oo maanan ka soo tagin laakiin shaqada waa la xiray meesha foorkiisa ahayd waadna ogtahay foorkiisa ahayd foorkiisana ugu shaqeynay soo dhaweynta u fadhiyay bishii 300 ay siinay ma sha Allah shaqo fiican ahayd inaan horta macnaha been ka sheega ama iskala aan ka faana ma aha ma sha Allah $300 ay siinay intadeeda meesha ku cunay qadada asha iyo quraan gurigeena ku cunay hadda ma xad dhacay marka meesha foorkiis cudurkana imaaday markii wax iga duwas cudurka maanan jirin hadda cudurka imaaday kadib meesha waaba la iska xirayba oo ninkasta gurigiisa 4 bil cudurku soo u bilaaway iyo ka hortiisba hal bil bisan ka qaatay $300 halka bil gurigi iyo korontada iskaga bixinay bishii labaad cudurkana imaaday kasii dambana ma wax mushaar maanan qaadin guriga iska marka commentiga ku soo qortay waxaan dhahay shaqo doona ahay shaqo marka waxa iska raadina oo guri camal iska raadina ama nadaafad kadib ninkan Catoosh ay soo jawaabay wuxuu dhahay please damba meeshan shaqo hay u soo qorin iga dhaafo dhahay okay ada walaal marka wixii qaadeen screen ay ka qaadeen dadkii baraha bulshada ugu faafiyay laakiin waa adiga maxaa keenay arintaas horta way garanaysaa ani Munasaro ma sha Allah wiilku ugu horeeyo nolosheeda asaasay tahay mar labaadna ku soo wiciga oo kula soo xiriiriyo waa ka xishooda ay gal waxa daraadaba wiilkani shaqo abuur ku sameeyay meel micnaha laga codsaday oo ku diray video ka duubay si fiican lagu soo dhaweeyay islahay ma baande marka dib uu ku soo noqon waayay lambarkaada waan heeyay ina iga qabanaysid ila hadlaysid waa ogaay marka aniga isku xishooday micnaha waa yar sheexay wiilkii daraad garabka ku sii mar labaad haddana hadda u naqatida isla Nawaal waxa laga yaabaa inuu dib ku arkay bal Nawaal iska daa walaalkaada dhibina isla marka asagana dhoodo page-kiis ku soo dhigay mar labaad si kale loo fahmaya Nawaal abayo horta walaashii baa tahay gabar Soomaaliyeed tahay ma arki karo adigoo ma aragtay si aan wanaagsaneen shakhsi Soomaaliyeed oo kugu hadlaayo oo ma aragtay dadkii Soomaaliyeed aan lamid ahay aad uga xanaaqay
garasho la'aanta ninkaas uu sameeyay aadan runtii ugu xumahay tan kale laakiin abay waxa waaye inaan wargelisay ahayd shalay dadaalkii aan galnay mid lamid aan gali lahayn wax dhibana ma jirin hadda bal xaalka guud ka waran ku faafiyeen oo gruubyadii la dhigay waxyadii dhammaan aad waa la dhigay dad Soomaali lagu ma sheega hal mar adeeg kacan bis waa marka walaal waa sida xalka sida soo u jira shaqada waa ka soo tay 6 bil ilaa 5 bil maan mushaar qaadinin duruufii darad aan adeeg ku soo wacay aan ku sheegay ilaa had i heesta marka insha Allah bro isoo ducee arintan soo soo u jirta marka aan galeena insha Allah bay Nawaal hawsha markana waa galeena ilaa hadda meeshii way xirantaa xitaa 500 oo hooyadeeda aan warsadaya jirtay oo waxa meel forkisa shaqaliisiye 500 aan oo dhiga wixii oo faa'iido ku soo baxay 250 oo ku soo diray hay ilaahay macna soo deemina ku soo diray 500 u deem hooyo ii soo dirtay hooyo kadib waa dhigay 500 waa iga dhuntay shaqadii meesha ku baabaaday may baro waa shaqlaana 5 bil shaqlaana Nawaal bay waa dareemaya aad aan u mahadsan tahay dadka Soomaaliyeedna aad ay kula damqadeen shalay waa dadkii ayaga fariintaadii baahiyay maantana ayaga diyaar u ah waxna ha u joojinin qofka ma aragtay digashada sameynaya adduunka tilkal ayaama maanta ninkii ladan bari inuu ladleen baa dhici karta marka abay waxa waaye ha u joojinin aan ku dhihi lahaa horeyna u soco waana dadaalina insha Allah aad aan u mahadsan tahay arrintan ayaa noqotay mid si weyn saameyn u yeelatay saacadihii u dambeeyay baraha bulshada gaar ahaan barta Facebook waxaana sidoo kale weli aan jawaabin oo aan ka hadlin arrintan wariye Catoosh waxaan ka doonaa sheekadan iyo halka ay ku biyay shubato halka